السلام عليكم ورحمة الله كل أنا وناس داود خارجي أنا فهمتي أنت كدب ملصقتها إن caadadu ama ciddada ama meertada nolosha ee isbeddelka dumarka inaysan ku dhicin oo keliya dumarka ay ragguna ku dhacdo inta badan waxaan naqaanaa oo daraasado fara badan laga qoray dumarku inay caado ku dhacdo waxaana daliil u ah oo si caadi loo arki karaa maadaama dhiig bax ku yimaado dumarku la arki kara astaamahaas kadib ay qasab noqotay in dadku aqoon-yahanada wax ka qoraan daraasado ka qoraan oo wax badan laga tiraasay la tijaabiyo oo baaris lagu sameeyo emotionally dareen ahaan hormoon ahaan bal maxaa iska bedeli kara sidoo kale ay ku qasbanaadeen laakiin barniyo soo ooy ragga bal ka war haddaan ku dhaho ragguna isbeddel saasoo kale ku dhaco runtii dhiig bax ma ku yimaado oo lama arki karo laakiin meertadaas isbeddelka cyclekaas ku la mid ah weliba ka badan oo soo noqnoqdo ayaa ku dhaco si aad u fahamta marka mawduucan 5 waxyaabood ayaan insha Allah taala ku soo bandhigi doonaa shantaa shay fahanto dabciga ragga oo dhan waad fahmaysaa iyo isbeddelada muuqda ee ku dhici kara marka ila soo inta kadib tan koobaad raggu waxay leeyihiin mid maalinla ah ciddadooda ama caadadooda ama dhiigooda ama saa u taqaanaba markaasi meertada markaasi cycleka periodka ay ragga maraan waa mid maalinla ah maalin walba wax ku dhaca waay ma aha wax oo la xiriira macnaha wax bilbil u yimaada maaha inta badan waxaan naqaanaa oo caadi ah si aad u fahamto mawduuca subax waaga markuu baryo ninka ama wiilka waxaa arkaysaa inuu active yahay laga bilaabo 7 ilaa 9 subaxnimo waxa laga yaabaa waaga markuu ku bariyo inaad aragto xubinkaga tarankoo taagan inaad aragto inaad macnaha active tahay inaad ilaa ku sameeydo xoog leedahay inaad arkayso oo aad markaasi firfircoon tahay sababta ma taqaanaa waxaa jira maada la dhaho unug la dhaho oo jirka ragga ku jiro oo testosterone la dhaho testosteronekaas ayaa big ah oo kor jira taasoo keenaysa inaad active ahaato marka aad saacadii joogto ama 2 saac kadib ama 9 markii la dhaafo kadib 11 12 wuu si yaraadaa wuu si dhacaa boqolkiiba aan ku soo qaadno tusaale inuu ahay markaad joogto tusaale ahaan habeenkii oo kale maqribada 6da maqrib markaad joogto oo kale down waxa iska joogaa boqolkiiba 40 oo kale 2 saac 3 saac habeenimo marka la gaaro waa zero si noqdo hoos buu sii aadaa marka si aad marka u fahanto raggu subaxi waaga markuu baryana dabcigooda waa gaar habeenkina waa si kale la soco tan labaad number 2 aan ka dhigi doono waxa waaye qaabka stresska u saameeya ragga ma la mid ahan sida uu dumarka u saameeyo soo ugu dhaca dumarku wuxuu ugu dhacaa stress ahaan emotionally hadaa rabto gabar ama qof dumara oo ku dhacay stress hadaa rabto inaad daaweyso ama aad daryeesho emotionally ayaad soo kabi kartaa oo aad markaas problemkeeda ka taxraaci kartaa laakiin raggu sidaas ma markuu qof ama nin rag uu ku dhaco waxa loo yaqaano stresska ugama dhaco emotionally wuxuu ka soo bilowdaa